barasaafka gobolka Awdal oo maanta shir gudoominaya shirka iskuduwayaasha laamaha dawladda gobolka Awdal ayaa waxa shirka maanta diradda lagu saaray abaar baasan oo ka jirta deegaanada gobolka Awdal iyo qaybo kamid ah gobolka Salal. Maxamed Axmed Caalin Timbra ayaa markii kulankaasi uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay waxaana uu baaqay la dhaana u diray gudiga gurmadka abaaraha isagoo ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo gurmado dadka iyo dunyada la daaladhacaya abaarta. si wanaagsan dood badan baynu ka yeelanay waxaynu ogaanay xitaa iskuuladii qaarkood inay u xidhmeen biyaraano ay ka biyo dhaamis degan caruurtii dhiganays iyo macallimiintiiba ama reerkii ha u biyo dhaamiyaan biyo intay biyo waada ay isaga yimaadaan abaartaas waxay u badan tahay xagga xeebaha oo gurmad degdeg oo dhaqsaa u baahan waxa jira ceelal saacadihii ay ugu daraadee fadhiistay waxaanu si gaaban iyo si dheer baa ula hadlaynaa gudida abaaraha oo aanu leenahay waxaanu u baahannahay qacan degdeg ah dhicisku inta birta loo soo sudo ka soo baqtiya waanu soo eegaynay waanu soo arkaynay xaaladdeedu way dhaafsiisan tahay SOS baan ku jiraa kaalmada dadkaas u baahan yihiin caraf xoolaad iyo mid dad labadaba in la soo gaaro in biyo la soo gaaro annagu gobol ahaan waanu isku sii tashanaa inkastoo waxaanu qaban karaa daa iska yar tahay haddana kulli diyaar garowgeeda waanu galeynaa kaalmada weyn laakiin waxaanu ka sugaynaa guud abaaraha oo aanu maanta halkan shirkayagan kaga dhawaaqayno abaarta baahsan ee haysata gobolka Awdal iyo waliba qaybo kamid ah Salal. Waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama.